والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالق ميل كستا جوجتين كسو دوادا جنال كيني حرونت cuntada caafimaadka waa walaashiin Shukri Aadan Buule. walaalayaal macaan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ilmaha markay gaaraan 6 bilood. markii hore waxaan ka soo hadalnay sida ilmaha loo nuujiyo naaska 0 ilaa intuu gaaray 6 bilood iyo wixii ka dambeeya ilaa intuu ilmaha ka weynaanayo 5 sano cuntada la siinayo step by step. ilmaha yar markuu gaaro 4 bilood ilaa 6 bilood markaas waa markuu ilmaha agaran kartid markuu rabo cuntada. walaalayaal macaan ama walaashayda qaaliga ah gabadha hooyada ah sideeba ku ogaan kartaa ilmaha inuu cuntada u baahan yahay? waxa lagu ogaan karaa ilmaha yar markuu inuu cuntada diyaar u yahay markuu luqunta ama qoorta uu qabsan karo oo caadi uu luqunta la dhacdhicinin, markuu kaligiis fadhiisan karo ama markay dhalada kaligeed qabsan karto. markaas waxa ogaanaysaa ilmaha yar inuu cuntadii diyaar u noqday. marka waxa anaga dhaxnaa markaan shanaysnahay 6 bilood ayaa ilmaha cuntada diyaar u yahay sida oo professional health caafimaadka ah. marka waxa ku bilaabaysaa ilmahaga biyo yar qaada soo qaadanaysaa, koob ku soo shubaysaa. waxa la dhahaa barasho introduction. waxa qaadada ayaa afka ugu shubaysaa biyaha ilmaha yar. biyo ayaa ugu horeysa waxa ilmaha ugu bilaabaysid. markaas waxa ku xijinaysaa uji ama ujida kala uji dhan ma aha ujida cad oo ah waxa laga sameeyaa bariiska cad ayaa siinaysaa. waa qafiif waxa la dhahaa liquid ha ahaado. ilmaha marka uu bilaabaysid waxa ugu horeysa waxaan dhahnay waa biyo yar ayaa afkiisa ku bilaabaysaa. waxa ku xiga ujida oo ah bariiska. why? because mu keenayso wax xasaasiyad ah ama mu keenayso wax shuban ah ama matag waxaas mu keenay waa lagu talagalay ilmaha markuu 6 bilood gaaro. laakiin ha ahaato aad iyo aad in qafiif u haatal rabaa qaado maalinta ugu horeyso. ama for example xalay oo kale biyo laba qaada siisay then waa sugaysaa bariis wax markay gaarto ujidiya soo karso biyaheediyada practical aan xarabayna keenay iyadana sayni tuso iyadana qaado yar ama 3 qaado afu gelinaysaa intaas ayaa ku filan waa joojinaysaa. markaas waxa sameynaysaa istaabyaal xajro ilmaha cuntada loo siiyo. waxa kale oo ku ogaan kartaa ilmaha yar inuu diyaar u yahay cuntada bombalaha ama toys ku haysto waxa jisan karaa. waxa kale oo ku ogaanaysaa markuu ilmaha yar cuntada diyaar u yahay 6 bilood u gaaro waxa arkaysaa damcaya ama u fiirinaya marka cunto cunaysid cuntadaadii ama uu soo laacaya. markaas waxa ogaanaysaa ilmaha 5 bilood ilaa 6 bilood inuu ilmaha diyaar u yahay cuntada. marka waxa jiro waxa la dhahaa ilmaha yar markuu 6 bilood gaaraysan hore soo sheegnay inaad ka ilaalisid ayaa fiican. cuntada sokorta ku badan tahay because ilmahan aad buu yar yahay man xamil karo. cuntooyinka sokorta ku badan tahay ka ilaali. cuntooyinka cusbada ku badan tahayna ka ilaali. calooshiisa waxa ugu horeysa ku bilowdo waxa fiican hore waa biyaha iyo wujida ah waxa la dhahaa bariiska. waxa kale oo laga rabaa inaad ku bilowdid cunuga 6 bilood ugu horeyso vitaminyaasha la dhaho zinc iyo iron because naaska ma laha la dhahay dhakhaatiirta dhahaan. soo cuntooyinka laga helana waa sii sheegaynaa. waxa kala siinaysaa ilmaha yariska markuu 6 bilood gaaro isagana sida hore uga soo hadlay. marka waxa la rabaa inaad ogaatid ilmahaaga marka cuntada u bilaabaysid waxa ku bilaabsaa maalintii hal cunto sida inaan tusaale ahaan soo qaato baradho oo ayaa dhaqaysaa hagaajinaysaa digsiga ku shubanaysaa biyo ayaa ku karkarinaysaa. waxa ku dari kartaa carrot bes marka dhaw u shiidaysaa waa siinaysaa. cuntadaas waa sugaysaa 5 bari cunugisa ku ogaatid maxasaasiyada ku leeyahay ma allergy ku leeyahay waa sugaysaa. maalinta ku xigta dan waxa ku daraysaa maleenga waxa la dhaho Kenya dadka jooga ama waxa ku darsan kartaa vegetable aad u badan yihiin ku dari kartaa. maalin kasta marka maxabad ku daraysid marka hadee heed baradho 6 bari ayaa joogaysaa hadee heed ku dartay waxa la dhahaa carrot dan waa sugaysaa 5 bari dambe
because waxa sugaysaa reaction ka cunugaas jirkiisa ka baxayo hadaa hal mar wixii cunto inta waxaysid ashiidid asiisid hadhow ma ogaan kartid ilmaha laga yaabaa inuu ku shumo waxa laga yaabaa inuu jirkiisa uu allergy ku yahay waxa laga yaabaa inuu uu la qabsanin ama caloosha istaagto so waxaan u dhahayno cunuga ku bilow step by step hal maanta bilowdid barada ay sugtid 5 bari ka bacdi waa ogaanaysaa inay waxba jirkiisa ama ay allergy ku yihiin ama dhibaato dhan uu keeninin saasa ku wadaysa after 6 bari hadana mid kale ku daraysaa hadana 6 bari ka bacdina marka gaartid marka ina bilawdid ina ku dartid hilibka ama maxaa la dhahaa malayga hadana sidaas oo kale waa sugaysaa marka cuntada marka bilawsis hore uga soo hadlay ha ahaato cunto qafiif ah marka ugu horeysa aad iyo aad biyo ah hadana waxa sugaysaa wax yar 5 bari ka bacdina waa yar adkeenaysaa hadana 5 bari ka bacd waa si adkeenaysaa adag zaid ay waxaanin cunugii hadda wuxuu noqday caanihiina kama goynaysid naaskiina waa siinaysaa waa ku wadaysaa ilaa intuu 2 sano ka gaarayo waxa kale ilmaha siinaysaa hadii malayga yahay malayga oo la fahlayn waa soo gadanaysaa adigoo aad iyo aad ugu taxadarayo marmarka qaarkiis malayga waxa ku jira lafaf yar oo la arkeen hooyada si fiican ha u fiirso markii cuntadii kale ee hagaajisay ee bislaysay oo ugu daraysaa wax yar sugaysaa markuu bislaadina waa la shiidaysaa malayga aad ayuu ilmaha ugu fiican yahay maskaxiyahan ugu koriyaa ilmaha aad iyo aad maxay noqdaan ilmo oo smart ah oo dhinaca waxbarashadana aad ugu fiican yihiin hilibkana ugu fiican waxa laga helaa isagana zinc iyo waxa laga helaa iron saa hore uga soo hadalnay iron kana waxa laga helaa dhinaca hilibka zinc kana waxa laga helaa qudaarta oo greenska ilmaha ugu fiican yihiin markuu yar yahay in la baro hadhow markuu weynaado carruurta badana ma jecla qudaartan oo greenska oo cagaarka ah dadkii waaweynaa waa ka helin ilmihiisa iska daa marka intuu yar yahay ta ku soo tarbiyaysid hadhow markuu weynaado wax weyn ma la noqonayo cuntada si fiican u cunaya caafimaadna wuu lahaanaya waxa kale oo la rabaa ilmaha inaa siisid cerealka oo lagu gado supermarket-yaasha ugu fiican yahay isagana inaa siisid waqtiyaasha snaaga ah galabihii ama habeenkii wax yar ka siinaysaa waxa kale oo fiican ilmaha yariiska in loo juice-ka laga ilaaliyo oo dhalooyinka ku jira oo skorta leh muu fiicna hadaa juice siinaysid waxa fiican inaad siisid juice-ka oo la shiido waana ka ilaalinaysaa skorta badan wax yar ku shido because ilmaha yar ma xamili karo marka waxa kale oo fiican markuu ilmaha yar yahay in qudaarta walaalayaal macaan aan barno markuu dhahayna 6 bilood ama 7 bilood uu jiro waxa sameynaysaa liinta oo soo jarjaraysaa waqtiyaasha barqado kale gacanta u gelinaysaa liinta waxa ka taxadaraysaa lafihii ayaa ka bixisay because ilmahan waa ilmo yar ma kasay sidoo lafta la isku ceelisay ugu tagin hooyooyinka gacanta u dhiibaysaa ilmihii wuu jeclaanayaa caafimaadkiisa vitamin C-gana kor buu ahaanayaa hadhowna markuu weynaado muku diidaayo because soo yar ayaa bartay sida timirto kale waxa la sameeyadana lafta laga bixiyaa gacanta loo siraa markuu gaariga ku jiro ama meel ku ciyaara iska fadhiyo wuu baranayaa caloosha waqti timirtana faa'iidooyinka leedahay meeshan kuma soo koobi karno aad iyo aad iyadana ugu fiican tahay waxa kale sameynaysaa tufaaxa inta uu dhaqtid aad jarjartid si yar u soo jarjartid ayaa iyadana gacanta u gelinaysaa hal maalin maaha maanta hadaad siisid tufaax gacanta u gelisi bari hadana xasinaysaa liinti oo lafiya ka bixisay barida maxaa siin kartaa hadana timir hadana barida maxaa siin kartaa babayga mooska hadhow ilmahaas ilmo dhisan oo wuxuu noqonayaa qudaartii aqaano oo caafimaadkiisana tamaamka yahay waxaan rabaa hooyooyinkan kala hadlo ilmahaaga marka cuntada u bilaawaysid beeskiisa si fiican uga dhis hadaa marka cuntada lagu talagalay ilmihii aad siisid hadhow dhibaatooyin badan ma la maraysid ma ahaana ilmo maanta oo dhan cuntada kugu diidaayo oo ilmo buka ma aha ilmaha oo maanta oo dhan isbitaalka la geenayo la dhahayo ilmahan hilibkiisa ama kiiladiisa kooma noqonayo soo marka waxa fiican inay hooyada barto cuntada ilmaha sida waa ogeey hooyooyinkan inay yaqaaniin even haddii xitaa dhahayno Soomaalideena waxaan jecelnahay in ilmaha siino canjeerada dhib ma laha laakiin canjeerada ilmaha aad siinaysid ha ahaato inuu markasta cunto ay iska ahayn in ilmaha aad siinaysid for the sake of fans ka siinaya hayga dhergo meel ma aha ilmaha marka cuntada siinaysid waa inaa markasta soo ahaatid ilmahaas muxuu ka helayaa isweydiisid vitamin K uu ka helayaa canjeerada for example da soo qaadano tusaale ahaan canjeeradii brown yar ku dar xabad ukun ku dar cusbo yar ku dar sokor ku dar halkaas cunugaas muxuu ka helay protein ka helay wuxuu ka helay carbohydrate ka helay jirkiisa wixii looga baahnaa waxyaalo badan uu ka helay laakiin canjeero qamiir inta laga buuxiyay wuxuu ka helay actually ma ujeedi qamiir isagiiba dhibaatay calool fuur baa u imaanay laakiin hadda xitaa siinaysid burkeeni fiicnaa high fiber kala soo gado supermarket-yaasha yaalo waxa ku darsataa xabad ukun leh ukunta waxa leedahay waa protein hore ka soo hadalnay ayuu inaga ka helayaa
waxa kale ku darsanaysaa sokor yariis ku daraysaa labadii burtii cadadkii oo brownka isku daraysaa ilmaha halkaas caafimaad isaga uu ka helaya waxa kale siin kartaa ilmaha yariiska porridge-ka oo la dhaho waxa la dhaho oats meel kasta subaamada waa the best oo ilmaha yariiska xitaa 6 bilood markay gaaraan xitaa waa la siiyaa isagana uu cad yahay ama shiidi kartaa ama u tumi kartaa waa siinaysaa waxa kale jiraan rabaa inay la taliyo walaalayaasheeda Soomaaliyeed gabdhaha ah waxa jiro meel oo dadka oo caafimaadka barteen oo taanku ku yaala dadka Nairobi ayaa la hadlayaa qaas ahaan degan waxa sameeyaan ilmaha yar waxa u dhiibaysaa qofkii rabana inuu la soo xiriir karo ana ku xiriirin karo waxa siinaysaa age-kiisa iyo magaciisa ilaa intuu xitaa qofka weyn xitaa waxa la borjaasha meesha lagu sameeyaa inta loo hagaajinayaa borjka wax kasta ku jiro waa la siinaa iyadana aad iyo aad ay u fiicantay inta meesha Soomaali kuma arko makaan tago aniga waxaan ku arkay dadka ajnabiga bisan ku arkaa soo waxay tusaysaa meeshaas dadkeena Soomaalida inaan wax badan ay ka maqan tahay waana iguna dhiirigelinaya in halkaas aadan hooyinka Soomaalida qofkii aqoonanaya la soo xiriiro anaya tusaayo waa dadkii waxa joogo dadkii dhinaca cuntada ku takhasusay ay wada taagan waxay ku hagaajinayaan cuntadii ilmihii age-kiisa wixii u baahnaa dhan 2 bilood ka bacdina soo laabanaysa waa aad lacag yar oo raqiis ah haday ugu badantay 300 oo Nairobi Kenya ay tahay waxa kale ilmaha la siiyaa oo ilmaha gal rabaa ina siisid marka oo fruits waa ka soo dhistay dhinaca qadada hadaa rabtid ilaa 6 bilood ilaa 7 bilood markuu gaaro 8 bilood ilaa 10 bilood waxa ku wadaysaa cuntadaas la jijibiyo oo loo shiidayo iyadoo wax kasta ku jirto haday tahay malaay haday tahay doorada cad haday tahay maxaa la dhahaa hilibka gaduudan weegi 2 jeer ugu daraysaa ilmaha sanadkaaga markuu gaaro ilmo caafimaad badan ayuu noqonayaa markaas ma sha Allah waxa ugu gudbaysaa cuntooyinka caadiga la siiyo sida baastada siin kartaa bariiska u jijibisa siin kartaa biyahana ha ka ilaawin markaas maadaama cuniga hadii 6 bilood uu soo gaaray uu baahan yahay biyo u baahan yahay musqusha sida ugu adkaanin because cunto ayaa jirkiisa galays markii hore caano uu aabi jiray waa ina markasta biyihii kula tacaashid ana biyihii bartid masaasad ugu shubtid bartid dhigtid asiisid fruitska sida kale la shiido way u fiican tahay inuu ilmaha yar la siiyo sida aan dhahay daliintan oo gacanta loo gelinayo kale u fiican tahay musqusha ay dhinaciisa ka caawinaysaa timirto kale oo gacanta loo gelinayo barnaaya hadhoonku cunaysa musqusha kuma adkaanayso saas ayaa walaalayaal macaan inigula talin lahaa waxa kale oo fiican in ilmaha yar la siiyo walaalayaal macaan cunto yogurtka caanihi sidii baa u siinaysiin 3 koob maalintii in caano siisa laga rabaa hadee la nuujinaysidna horta aniga waxaan kula talinaa markaas hooyinka inay naaska nuujiyaan ilaa inta 2 sano ka gaarayaan iyagoo ilmihina cuntadii siinayaan hadda waxa jira hooyinka la iyagana meebi shaqeeyaan ama markaas ka gooy 6 bilood muhiimada waxa weeye 6 bilood in cunug caanaha la siiyo naaska la siiyo maxaa kale siin kartiin yogurtka markii 5 saac la gaaro ama markuu soo kaco ilmaha yar 4 galabnimo 10 saac galabnimo yogurtkana waa wax fiican cunto caano fiican weeye hadda inta yirihiin barayni dhihi lahaa waxay ka dhisayaan dhinaca lafaha iyo dhinaca ilkaha iridka uu fiican yahay marka xitaa ilmaha waxa jiro marmar yogurtka qabow aniga hadda Soomaalinahay waxaan ka cabsoonaa qabowga cunto ilmaha xasiinin cuntada caanaha qabowga waxaan ka wadaa yogurtka qabow uu fiican yahay hadii baraf dhacaayo uu jirin hadda sidaan oo kale kuleelaha markay jiraan yogurt xoogo qabow waa siin kartaa weyn u fiican tahay actually ice cream kana waxa laga helaa vitaminyaal badan iyadana si aan kula talinaya ilmo aniga xitaa waan siiyaa ilmihiga waxa kale oo kale kula talin lahaa ina siisiin ilmihina juice kala shiigo da Soomaalinahay ilmihina juice kala shiigo ma yaqaanaan please ku encourage gareeya ilmihina in markay yirihiin horay ka soo dhistiin juice ka siiya si fiican biyo loo shiido soo yar ilmaha juice ka dhalada lagu shubaa way iska cabayaan waana macaan juice oo wax kasta qudaartii oo dhan ku sameysay haday tahay timir avocado maxaa la dhahaa tufaaxi liintii waxbay soo ka maqneen u shiid ugu shub dhalada ilmaha yar ilmaha arki doonta ilmo caafimaad badan ayuu noqonayaa markaasna ma noqon doontid hooyooyinka markasta ilmaha isbitaalada la gala ama xanuunka ilaaha keena laakiin waxa la rabaa in la imaadid taxadar badan markuu ilmahaaga 6 bilood gaaro waxa kale walaalayaal iska ilaalisiin markay hooyadan la hadlaaya markay ilmahaaga 6 bilood gaarto gurigaaga markaas nadiif ku ahaado waxa jira waxa la dhaho antibacteria qofka ku masaxaayo ama adiga hadii qofka guriga nadiifsanayo guriga dhan guriga ku nadiifi maadaama ilmaha markii hore uu ahaa ilmo yar oo meel fadhiya oo
la dhahayo meel ma dhaqaaqo markaas waxa laga yaabaa xanuunihiisa way yaraayeen ilmaha markuu 6 bilood gaaro ama 7 bilood waa markay xanuunaha badan ku dhacaan sida la dhahayo shubanka badan ama mataga badan dib ayayna u celiyaan ilmaha marka waxa sameynaysaa in ilmaha markasta nadiif guriga ku ahaado ilmihina nadiif gurigaasna uu noqdo guri ilma ay joogaan waxa laga yaabaa khataro badan ayaa xitaa yaalaan meel waxa iska yaalo saabuun ama oomo ama jik waxa aragnay waxyaalo badan ilmo jik cabeen oo dhinteen ama gaas cabeen gurigaaga marka xeel hooyadeena noqoto hooyo aqli badan oo markasta u digtoonaata ilmaheeda waxyaalahaas dhan dhibaatooyinka qadarka waa meeshiisa ilaahay ayaa wax kasta keena waan ku qanacsanahay laakiin adiga waxa laga rabaa hooyo ahaan anaga xinaga tahay talo ina gurigaaga ka dhigtid gurigii ilmo ku nool yihiin hadda wax weelal ay yaalaan kuraasyo dhalooyin ama xaas ka qaad ilmaha ayaa naftaada kaaga qiimo badan waxa kale sameynaysaa waxa kale dhibaatooyinka keenayo ama hadee wasaq tahay hadee wax kale cunaa ilmo yar waaye aqlina ma afku gashanaya hadhowna waxa ku dhacay infection isagana xanuun badan ayaa la soo gutoomayo marka waxa fiican gurigaaga inaad nadiifisid gacmihiisa markasta nadiif ahaatin ka cunto siinaysid gacmaha ka tirtirtid dhaqadid wax gurigaaga nadiif ku ahaado markaas waxay noqonaysaa waxa ka yaraanay adigana aragtida badan isbitaalka waxa laga yaabaa markii bishii hal mar inaad tagtid ana u tagin markaas xanuun ahayn ee tahay just inay tahay marka ilmaha talaalka la geeyo waxaasna waa wax fiican xituusaa inaad ilmahaaga yahay ilmo hooyo fiican oo ilmaheedana si fiican u haysata markaas ayaan nigula talinayaa walaalayaal macaan hadda waxaan u sii gudbaynaa insha Allah ilmaha yar haduu diido cuntada maxaa sameynaysaa xakamaha la soo wajaha weeye waalidka had ilmo waxa jiro aniga waxa aaminsanahay hadii ilmihii hoosta waxa soo sheego dhan intuu yar yahay tartiib loo soo baray sida fruitska sida greenska sida cuntadii sida juice-kii sida caanihii waxa aaminsanahay anaga waxa aaminsanahay hadanahay caafimaadka cuntada dadka bartay ilmahaas dhibaato ma keenayo hadhow markay ilmahaas weynaadaan ilmo waxay noqonayaan appetite-kooda badan yahay aan sida hore uga soo hadalnayna ilmaha naaska la siiyo appetite-kooda aad kor buu yahay ilmaha naaska la siinin waa ilmaha appetite-kooda xoogaha u hooseeyo laakiin hooyada hadday tahay hooyo markasta u taagan ilmaheeda la tacaalaysana way gaari kartaa ilmaha naaska la siiyo intaas ayaan aaminsan hooyada ayay ku xirantahay markasta marka waxa hadii ilmihii ka waran uu kugu noqdo ilmo cunta ka qaadanin maxaa sameyn kartaa waxaan kula talinayaa hadilin hana qasbin hana canaaninin ilmahan waa ilmo yar oo waxay ku qaataan sida fiican wax ina naxariis tustid ana patient wahatid ku dhahdid wixii bal cuntadii marmarka qaarkiis waxa laga yaabaa ilmihii jirkiisa in xanuun ku soo jiro oo hooyadeena la soconin markaas oo kale ilmaha cuntada way diidaan way ka go'aan marmar waxa laga yaabaa ilkaaya soo socda markaas oo kale ilmaha cuntada ma cunaan in waxa jiro hooyadeena ogaan karto markaas cunugeeda marka qaarkiis waxa laga yaabaa ilmihii jirkiisa iyo markuu sidii hore waheen adiga la raba baartaan inaad samaysid ilkiisa fiirisid macaloosha taagan inaad la socotid caloosha maalinta isticmaal ilmaha yarna musqusha aad at least maalintii hal maarin inuu aada laga rabaa ma xanuuna soo haayo hadaa tahay hooyo markaas digtoonaysan way ogaanaysaa way la soconaysaa bata dixta waxba uu qabin uu diido cuntadii isku bedel inaad bedeshid caafimaad iyada tahay cunto caafimaad ah hooyooyinka waxaan kula talinayaa ilmihiina intay gaarin sanad iyo marna siinin ilmaha cuntooyin xalii raba cuntooyinkan junk food la dhaho ee laga soo gato meelahaas ama cunto biyaha sharabkan oo dhalooyinka lagu siiyo calooshana way qalajiyaan ilmaha yarna ma xamili karo sokor badan ayaa ku jirta soo waa tala aniga gaar ah hadda hooyo fiicanta ilmahaaga kala taxadar caafimaadka ilmahaaga ayaa wax kasta ka muhiimsan marka hadii intaas oo dhan ilmaha waxaan jirkiisa ku soo sheegnay ilka ku soo soconin ama xanuun ama hargab ama iska caajisneen waxa sameeyay cuntadaadii bedel waxa bilowda cunto ilmaha uu jecel yahay cuntadii ay tahay caafimaad tahay waxaan kula talinayaa markaas inay siiso hooyahooda marka ilmaha cuntada diido biyo badan una siiso fruits badan haduu yeelayo ama hadii yeeliso inay siiso juice badan ilmaha iska jecel yihiin sharaabka because cuntada diidaan hawo ronaato caanaha ama yogurtka oo qabow even ice creamka appetite la dhahaa cuntadaas oo kale wax soo celiyaan appetite soo celiyaan waxaan kale hooyooyinka kula talin lahaa inay iska ilaaliyaan sharubooyinka oo la dhahayo appetite-ka inta ilmaheeda yar yahay ilaa inta ka gaarayso 5 sano uma u fiicna iyadana hal mar hadaa bilowd ilmahaaga inaad bartid daawooyinkan appetite-ka la dhaho ilmihii jirkii ilmahan uu yar yahay jirkiisa la qabsanaya hadhow ilmuhu
illa appetite asisi daawo ma hano cunta kaama qaadanayo taasna waxay kugu noqonaysaa xakimad weyn dhibaato weyn kugu noqonaysaa cuntada ayaa badbadelaysaa hadii kale yahay la kaasho dhakhtarkaaga hadii dhibaato kale jirin oo cunugaas xanuun kale ku jirin waxa lagu dirayaa dadka cuntada bartay ee nutritionist laho iyaga hadii cuntada ilmahaga step by step kugu soo qoraayo walaalayaal macaan waxa kale rabaa in halkan uga sheego hooyooyinka in cuntooyinka ee qaaska ahaanta iska ilaalinayaan caruurtooda 6 bilood ilaa inta sanadka gaarayaan malabka dhaqaatiirtu waxay dhahaan ilmaha yar markuu 6 bilood joogo ilaa inta sanadka gaaraya malab la siinin oo ogay malabka inuu dhinacina diintana wax badan oo nabigeena naga baray sallallahu alayhi wasallam laakiin ilmaha yar 6 bilood ilaa inta sanadka gaaraya xalay laga ilaaliyo cuntada kale sokorta badan ilmaha ma fiicna oo cuntooyinka sokorta ku badan because waxay keenaysaa cunuga ilmaha ilka jajaban ayaa u soo baxa ama ilka oo xanuunsan markii sokorta laga badiyay isagoo yar hadhow ilmihii ilkihii haduu xanuunaan in laga bixbixiyo noqonaysaa halkaas waxay keenaysaa dhibaatooyin badan soo yar in xanuun ku dhaco ilkaha waxa kale ka ilaalisaa ama in xal raba ka fiirisid meesha ay xadiida oo isbada badan iyadana ka ilaaliyaan dhihila ilmaha markuu yar yahay waxa kale oo fiican in laga ilaaliyo waxa jiro malaay la dhaho dhinaca badda waxa la dhahaa rosel fish la dhahaa dadka ka saayaan af Soomaaliya nimanka ka saayay bito hada ka siisin hoos ayaa nagu soo qori kartiin dhinaca comment-ka isagana ilmaha intuu 6 bilood ka gaara ilaa sanad ma u fiicnaa wuxuu ku yahay poison ya la siinin walaalayaal macaan hadda waxaan sii gudagalaynaa marka ilmaha yar cuntooyinka oo allergiga sida looga ilaalin karo waxa jiro ukunta saan ognahay allergy ay keentaa maaha ukuntii dhanna ka deysid laakiin ilmaha hadda ku aragtid cuntada sida hadda hore ugu soo sheegnay step by step ku aragtid cunugaas inuu allergy ku yahay ukunta ka jooji way keentaa iyadana ukuntada waxa kale oo keeno malayga ukunta ayuu keenaa cuntooyinka badan cheese ku jiro way keenaan allergiga cuntooyinka sidaan hore ugu soo hadlay juice-kana ma fiicna ay xitaa way keenaan allergy weena ilmaha waxay ku ridaan maxaa la dhahaa shuban ama matag ku ridaan iyagana ma fiicna ka ilaaliya hadda waxaan sii gudagalaynaa cuntooyinka inay ogaato hooyada ilmaheeda ay siinayso iska sii ma aha waxa fiican inay ogaan karto wuxuu ilmaha ka helayo caanaha la dhahayo caanahayaashan lagu gado hadii oo baakadaha ku jira oo supermarket-yaasha lagu gado ama Nairobi daan joogno maxaa la dhahaa waxay ku jiraan ama caaga ku jiraan caanahaas oo kale ilmaha ma fiicna iron ka kuma jiro hadhow ilmahaas markii la siiyo caanahaas waxa laga helayaa iron deficient waxa la dhaho cunugaas iron kiis ayaa yaraanayo lafihiisa iyo hadhow qatar ay galayaan iyo ilkiisa iyaga hadii laha caanahaas laga ilaaliyo hana ogaato hooyada waxay siinayso ilmaheeda waxa fiican hadana iski siin karto hasiiso hadii siin weyso waxay siin kartaa waxaan kula taliyaa anagana siiya ilmaheega caanaha oo gaasacadaha leh caanahaas ayaan siiya waana waxa laga helaa iron fiican waxa kale siin kartaa way badan yihiin caanayaasha dadkana iyaga choice leh laakiin anaga u sheegaynaa kuwa deficiency caanaha u keenayo iron badneen saas ay la socdo walaalayaal macaan waxa siin kartiin caanaha oo ilmaha oo formulaha 6 bilood ilaa sanad intuu ka gaaro caanahaas ayaa ku jira iron-kii ay ka helayaan soo la socdaan dhihi lahaa hadii ay naan tahay way badan yihiin caanayaashaas siinaysiin ilmaha ilaa inta sanad ka gaaraan sanad ka bacdi waxa rabta siin kartaa markaas ka bacdi waxa kale ilmaha cunto kasta hooyada ma aha in ilmaha siiso cuntooyin waxa jira ilmaha ay ku saxdaan sida crepes-ka bahalka la dhahayo oo canabka ma la dhahaa af Soomaaliga ilmaha way ku saxdaan oo inay hooyada digtoonaato ama u burburin karto markay siinayso hadii kale way ku saxanaya hadhowna cunugaas qatar ayuu galaya isoo jiifana hadii la cunto yaa la siinin ilmaha ma fiicna isagana way ku soxdaa ibanda hooyada naaska ilmaha siinayso iyagoo jiifan naaska lama siiyo position-ka ilmaha ama ha fadhido cunugeed markan caanaha siinayso ama cunto siinayso saas ayaa u fiican kale ayaan hooyooyinka kula talin lahaa ilmaha markuu 6 bilood uu gaaro ama la dhahay kor ayuu dhaafay bar sida koobka loo qabsado masaasada badan ilmaha ma fiicna qanjiraha ay xanuujisaa infection ay dhaga ku ridaa ilmo ku dhicina way jirtaa bad laakiin aad dhakhtaryaasha waxay kula taliyaan in laga joojiyo markaas la bari karo dhalooyin sida loo qabsado xitaa waxa jiraan kuwa kale oo waaweyn oo la qabsado laakiin ahayn sida masaasada xoog u nuugeenin ama waxa kula talinayaa koobka sida loo qabsado koobka yaryar sida loo qabsado ilmaha inay markasta maamada barto waxa kale oo fiican ilmaha yaryar markay hooyada cuntada siinayso inay marka uu cuntada siinayso ee ka labadooda ee ahaato maaha hooyan ahay ilmaha tawriya cuntada cun waxa kas waxay keenaysaa ilmihii iyo hooyadii ma laha relationship ama la dhaho wax qaas ahaan ma aha ilmihiina cuntadii hadhow way ku adkaanaysaa marka in la ciyaarto iyadoo la ciyaaraysa oo sheekeynaysa oo la
farq ciyaaraysa inay cuntadii siiso halkaas cunugii uu qoslaya cuntadii ay cunaya waxa ka iimaanayso farxad badan markuu cuntada cuno inay cunugii dhiirigeliso idhaahdo ma sha Allah baby ama wax fiican sameysay cuntada si fiican oo la ciyaarto cunugii hadhow way encourage gareynaysaa ama way dhiirigelinaysaa cuntada markay siinayso laazim ah cuntada markay ilmaha la siinay in indhaha loo sheeto ama la dhaho cuntada cun hadii kale uu dheer la soo dhigto madaxan ka tumaaya waxaas ma fiicna wayna shock ay ku ridaysaa ilmaha ilmihiina xariis badan toos adoo la ciyaarsi cuntadana si oo la sheekaysanaysid ilmihiina arkaysa hadhow dhaxdiina waxa ka furmanayaan maxaa la dhahaa jacayl iyo qaas ahaan hooyadii ilmihii cuntada cilmiina kuma xumaanayo halkaas ayaan kusoo xirayaa programkeyga walaalayaal macaan nagala sii socdo programyaasheena dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh